sababta uu ciishoonay waxay tahay asxaabe inagoo si qalad waxa u fahanteen oo meel walba anoo raali aan ka ahayn sabirkeyga soo saartay dhehaysiin adna waa qof xun adnana waxyaalahaasi samaysay aniga waxa dhibka amiira haasto aniga ma aha fahma Soomaaliyeed dhibka amiira haasto waxa ay ka cabanaysaa waa maxaa lahaa ninkeeda mush ma aha adna ma idin dhihin adna waxaas igu samaysay adna saas yeesh ma idin dhihin amiira waxa xumeeyay waa husbandkii hore qabay ma fahantiin ninkii qabay xumeeyay amiira aniga ma aha ya marka aad iyo aad ugu xumahay ina asxaab kamid asxaabteeda aniga saas maxaa lahaa idhahan maxaa yeelay amiir wiligeeda aniga la noolaa jirtay wiligeedana gurigaana ku noolee amiir walaasheeda ahay maanta ma u buuxin kari asiim booski aabihiisa ma u buuxin kari laakiin booski leega baahnaa hawaryarnimo waxaa hubaa inaa kasoo hay aniga guriga ma haysanin nolosha amaanta aan ku jiro ma ku jirin waxa ahay ruux oo ku tirsan qof يعني الروح كتير سن قف بني آدم أهاي أنا نفس هندي الحمد لله ما أنت نرجع تاجنها إلهي إسوا جارسية يددال كيجا لكن وحا إذن شيء يا ولي قف بني آدم كتير سنة حمان تلي جست يصير أو لقى يعني يصير واحد لقى له إلهي أو قف هذا وهاست مجرد واحد بنوا قدر لكن الحمد لله ما أنت نرجع هيك تاجنا إلهكم مهدنا هذا إذن شيء guri ma haysan saawad idinku sheego guri adna joogi halka qol aan aad degnay marka bibasiim aad dhali aan la degnay halka sir asiixanay ageeska seexinay asiim asigoo herisi ah ilmaha markay yirihiin umul yihiin way ooynayaan anigoo aqalanahay oo beebigeygana yiriis yahay oo haween iyo maalin waxa arkay haween aseexanay maalin aseexanay haween aseexanay maalin aseexanay haween aseexanay maalin aseexanay arkay noloshu waxay igu naqatay cariiri qof markoo noloshaada ku soo biiro adiga laga rabo ruux yani inuu adiga laga rabo inaa qoodsid inaa wax siisid aad ay kugu adkaanaysa oo adiga kaliga ay tahay soo marka aniga anoo xaaladeeda ay xun tahay oo haweenkii aad jiifneen maalintii aad jiifneen waxa sayto waa idin sheegay waxa dhahay idin dhahay waxa idin Soomaaliya inay astaarawa hooyaday u sheegay waxa dhahay aniga soo baxa Soomaaliya imaana adaa ku imaana ani saam ku jiri kari haweenoo soo jeeday maalin soo jeeday hooyada kula joogto isku mid ma waxa dhahay waa imaana Soomaaliya imaana yaa dhahay aniga ma joog kar meeshaan waa soo baxa dhahay adna ila kula joogto adnaha adoo walaashaada kula joogto xataa waxa rabtaa dareen hooyanimo rabtaa ina hooyada agtad agashidaarto dad kale iyo hooyada isku mid ma ahan hooyada waxay dhahday joog maalmahay idhahday maalinta idhahday ma soo bixaysid joog hore u soco gadaal ha soo fiirinin adi kaliga wax ma qabsan kartid ani dhan waxa dareemo kaligaas wax u qaban kartaa gurimaha waxa dhahay gurimahaast wax mise wax u sameeyna inta wax ka bilaaba maxaa sameeyna haween aan soo jeedo maalin aan soo jeedo qof yani garab ku siinin ahaysanin haween iyo maalin waxa ku duceysi jir ilaahu maalmahaneeti idaafsi maalmahaneeti aad iyo aad ay u xanuun badan tahay idaafsi haween iyo maalin ku duceysan jir saas oo ku jiro oo hadan lagu sii dhaw waxa tahay qof liidato waxa tahay qof nolol oo asmaysan karin waxa tahay qof oo ruux oo nolol qof kale ah ku tiirsanaa tahay qof waxa tahay qabsan karin qof guul dareysatay tahay beema idin sheegay aniga waxa dareemi jiray yani xumaan aad u weyn saamxay kugu dhacaysa dadka markay oo ilmo ay dhalaan waa la farxaa waa la qoslaa laakiin adiga maxaa yani san hada maxay wax walba isku bedeleen kaliya marka ahay wax ma dhibaa laakiin ruux naf kale ani wax iga sugayso ina ani qof kale ku tiirsanaad ma ani nafs ahaantii wax ina qabsado waay ilaahay sabab walba u tuugay waxa aad dareemi markii dambe ina adkaysi aad dareemi waa baxay anoo khalan asiim xawadka inaan ku xirtay magaalada aasti magaalada marka aasti anigoo simsas u wada been idin sheegay meesha waxa raadsi meelaha waxa raadsaday oo cunug waxa loo bedelaay iyo waxa yani saa uu soo nafiso marka wax aad tahay marka buuxsantid waxa u baahantay inay nafistid waxyaabaha kaliya aad ku nafisaysan waxa waaye ina yani maalmahaasoo kale had inaan ma aragtaa ku qiiroodo ma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قالي وايدين سلامة ميل والبودوني ضافية ذاك الجوكتين ومركلي ولا شيني خروجة وهورين هذا جنال كعصبتاي سبسكرايب صار هذا هورنو رجوك قيب طليقة نقدس فري محاقبتان كومنتيغنو وريب سودة دواد ولا لهي قالي ما انتو حاروينا كهادلو وحير إن فيديويال اي صودكتي ولا شيد أدنى يمد اي صودكتي أميرة إيو in asxaabta reaction ay ka bixiyeen iyo calaashaan community-yaasha iyo waxyaabaha ay ka bixiyeen oo
fariimaha ay dadka asxaabta ka bixin ayaa ka ooyinsiisay adna. Marka walaalayaalow kommentiyaasha qaldan aa qoreysiin iska daaya asxaabteeda qaaliga. Commenti wanaagsan qofka marka u qorto oo dhiirigelin ah ama waxyaabo wanaagsan ama xataa su'aalo tartiib ayuu kaaga soo jawaabaya, laakiin marka aa xanuujiso qalbiga ayuu ka xanuunsanayaa. Marka commentiga wanaagsan ama hadalka wanaagsan waxaa waaye sadaqo. Marka walaalahayga qaaliga ah walaashayda adna waxaan leeyahay qof oo moog ma jirto inaa Amiiro walaasheeda tahay oo garabkeeda mar walba aad taagan tahay. Waxa ay ka cabanaysana qofka fiidiyowga si fiican u fiirsado aqligiisa la kaashado wuu fahmi karaa inaan adiga ahayn. Qofka mar hadduu yahay hooyo iyo aabbo isku darsan markaas ayada ahne oona haysanin wax oo isku furdaamiyo oo wax walba uu ku qabsan kariyo oona haysanin ciil wuu dareemaya. Wax walba oo maanta qofka walaashiisa ama qofka hooyadiisa xataa iyo aabihiis ay u qabtaan mar walba ciil wuu dareemaya. Marka qofka ay iyada gacanteeda wax walba ay ku haysato qalbiga wuu u dagayaa, maxaa la dhihi jiray wax walbana way qabsanaysaa. Laakiin marka qof wax weydiisanaysid murug iyo wax walba waa dareemaysaa, beenteeda maaha. Marka qofka ay ka hadlaysana maaha adno waxay ka hadlaysaa sidii adna hore ee fiidiyowga hordhaca ugu soo daawateen ee sheegtaba waxaa waaye xaajigeeda hore ayay maxaa la dhihi jiray ee ka hadlaysay. Marka qofka markii oo maxaa la dhihi jiray hooyo aabbo isku darsan oo yahana murugo wuu dareemaya, markaasna uu ugu biyaha oo hore oon ugu baranin inuu waxyaabahaas mas'uuliyadaas weyn oo qabto murugo wuu dareemaya. Marka beenteeda maaha ayadana way murugoote. Alxamdulillah hadduu Ilaahay hada murugta ka saaro wax walbana ay gacanteeda ay ku qabsanayso. Maxaa la dhihi jiray adnana waa qof aad iyo aad u fiican walaasheeda mar walba garab taagneed, waana qof ku dayasho mudan sidii ay walaalaha isku jecel yihiin. Maasha Allah waa dad ku dayasho mudan oo lagu daya karo. Marka qofka ay ka dacwoonaysana maaha adno way ka soo baxday wixii looga baahnaa iyo waajibkeeda. Maxaa la dhihi jiray waana dareemi kartiin mar walba sida iskugu faraxsan yihiin. Ilaahay farxadooda ha u siyaadiyo. Commenti markaa qofku qoraysin commenti ama qoraal ama waxyaabo ay ku farxayso u qor. Wax oo qalbigeeda dhaawacayo qof bilaadan ha u qorin walaalahayga qaaliga ah. Taas mar walba wayna xasuusnaataa qofka marka wax qoraysid wax wanaagsan u qor ama ka aamus waxba ha u qorin. Sidaas ayaa fiican. Adiga qof bilaadan markaa qalad ka gasho qofkaas ilaa uu ku soo cafiyo ee noqonaysaa. Marka walaalahayga qaaliga ah ha degdegin insha Allah. Mar walba waxaa jeclahay inaan waxyaabaha degdeg ah niga waaniyo ama aan sheego inayna fiicneen. Adna Amiirana Ilaahay farxadooda ha u siyaadiyo ayaa dhaheynaa. Mar walba sidaas si ka wanaagsan iskugu faraxsanaada walaalahayga ayaa dhaheynaa. Maxaa la dhihi jiray Amiirana maasha Allah way ka soo baxday hadeeba hal sano hooyo aabbo isku darsan ay ahayd ayadoo ugub ah. Maasha Allah sanado badan Ilaahay kartidaas ha ku siiyo. Dadka sida ayada camal dhibaataysnaayo hooyo aabbo isku darsan ahne Ilaahay ayagana awoodooda kaamil Ilaahay ka dhigo. Wax walba u baahan yihiin Ilaahay ha siiyo. Maasha Allah hooyo lagu yaqaana kartida iyo awoodda. Intaas ayaa ugu baxayaa walaalahayga qaaliga dadka commenti fiican u qora insha Allah. Intaas ayaa noo balan walaalahayga.